filimku waxa uu ku bilaabmayaa 1980kii markaas oo ay calooshoodu shaqaystayaal lagu magacaabo Hunter iyo Danny Price ay ku sugnaayeen Mexico si ay u dilaan nin. Sheeko ay iska sii wateen intuu targetkoodu ka imanayo. Kadib waxaynu aragnaa laba nin kale oo lagu magacaabo David iyo Mayer kuwaas oo ay isku koox ahaayeen. Dabadeed kooxay kor ka arkeen bartilmaameedkooda oo ku soo wajahan. Waxaanu sidoo qorshuhu ahaa ay qarxiyeen mid ka mid ah baabuurtii iyagoo ninkii ay reebeen ciidamo badan oo isku jira sirdoon iyo boolis u watay. Gaariga bartilmaameedku ahaa inta ay gadaal uga yimaadeen ayay rasaas ku fureen. Wuxuu darawalkii isku dayay inuu baxsado balse Danny ayaa u soo dhawaaday oo baabuurkii intuu albaabka furay ayuu ninkii dilay. Waxa uu arkay inantiisa oo ag fadhida waa uu ka qoomameeyay maadaama uu aabeed ka hor dilay waa uu ka murugooday. Danny waa uu dhiyay markaas sarkaal boolis ah ayaa gacanta xabad kaga dhuftay. Hunter oo arkay saaxiibkiis dhibaatada uu ku sugan yahay ayaa weeraray askarigii saaxiibkiina badbaadiyay. David si degdeg ah ayuu baabuurkii u keenay oo waxa uu ka caawiyay inay gaariga soo koraan si ay meesha uga baxsadaan. Dhacdadan kadib Danny ayaa laftiisa karaahsaday oo waxa uu go'aansaday inuu shaqadan iska daayo uu nolol caadi ah ku noolaado. Wuxuu ku laabtay dalkiisa hooyo ee Australia. Wuxuu waqtigu socdaba waxa muddo kadib soo gaadhay warqad uu ku arkay sawirka Hunter. Waxaa soo baxday in Hunter la xiray kadib markii uu shaqo u dirsaday nin loo yaqaano wakiilka kaas oo ku sugnaa Cumaan. Danny isla markiiba waxa uu aaday Cumaan si uu saaxiibkiis u badbaadiyo. Waxa uu la kulmay wakiilka kaas oo shaaca ka qaaday in Hunter laga rabay inuu qabto shaqo lagu siinayo 6 milyan oo lacag laakiin waa uu awoodi waayay oo waa uu ku guuldareystay 3 bartilmaameed oo loo dirsaday. Saas darteed waa la xidhay. Hunter hadda waxa uu xiran yahay Sheikh Amar oo ka mid ah ragga ugu awooda badan Cumaan. Wakiilka oo hadalkiisa sii wata ayaa Danny u sheegay inuu sheekhu doonayo in hawshiisa loo qabto haddii loo qaban waayana waxa uu dili doonaa Hunter. Sheikh Amar oo ah boqor laga soo xoreeyay gobol yar oo ku yaala Cumaan ayaa doonaya inuu Danny u diro 3 askari oo hore uga tirsanaa ciidamada Britishka kuwaas oo kala ah Stephen Harris iyo Warwick iyo Simon. Sababtoo ah waxa uu doonayaa inuu uga argudo wiilashiisa maadaama ay askartani hadda ka hor ka dileen 3diisii wiil ee ugu waaweynaa. Sheekhu waxa uu Danny ka doonayaa in nimankaas muuqaal looga soo duubo iyagoo qiranaya dembigii ay u geysteen wiilashiisa. Kadib markaas waxa uu doonayaa in loo dhameeyo iyagoo dilkooda loo okeysiinayo shil. Haddii uu arintaas ku guuleysto waxa uu heli doonaa 6 milyan oo dollar. Saaxiibkii Hunterna waa loo sii dayn doonaa. Waa uu aqbalay inuu shaqadan qabto. Kadib Hunter ayuu u tagay si uu u arko. Wuu ku farxay inuu saaxiibkiis arko waxayna isku dayeen inay halkaas ka baxsadaan laakiin waxa ku fahmay wiilkii afraad ee sheekha waxaanu u sheegay inaanay arintan mar kale isku dayin. Danny waxa uu markaas u tagay wakiilka waanu ku xanaaqay isagoo u sheegay Hunter dhiiqada uu ku jiro inuu isagu ku lug lahaa balse wakiilka ayaa xaqiijiyay inaanay arintani ahayn qaladkiisa. Waxa uu soo raacay diyaarad si uu missionkiisa u gudo galo. Waxa uu dib ugu xasuustay waqtigii uu la qaatay saaxiibtiis Anna intuusan halkan iman. Danny waxa uu u tagay David iyo Mayer kuwaas oo aqbalay inay caawiyaan balse waxay ku xujiyeen inuu lacagta qayb ka siiyo. Si kastaba ha ahaatee Danny ayaa sheegay in aanu lacag u baahnayn kaliya uu rabo inuu saaxiibkii Hunter badbaadiyo. Waxa ay go'aansadeen in bartilmaameedkooda koowaad ka dhigtaan Stephen oo ay ogaadeen inuu Cumaan weli joogo. Sidaas darteed Danny ayaa habeen ninkaas daba kacay oo gurigiisa u dhacay. Wuxuu dareensanaa inay qasab tahay in dilkiisa loo ekeysiiyo shil. Suuliga ayaa wax uu ka soo jabsaday waanu soo qaatay. Danny ayaa xilliga David u diray Ingiriiska si uu u soo ogaado halka ay ku sugan yihiin labadii nin ee kale. David ayaa tagay baar waxa uu dadkii weydiinaya qaar ka tirsanaa askarta Britishka ee Cumaan ka soo dagaalamay. Waxa warkiisa la gaarsiiyay in lagu magacaabay Speak Logan kaas oo loo sheegay inay jiraan dad raadinaya saraakiishii Cumaan ka soo dagaalamay ee Britishka. Waxa loo diray sawirada David isaguna waxa uu la wadaagay odayaashii ka sareeyay. Wuxuu sheegay in ay jiraan dad uu ka shakiyay oo raadinaya saraakiishii ka soo dagaalamay Cumaan. Waxaana uu sheegay inuu shaqadiisa qabto arrintanna sidoo doono u xaliyo laakiin David ayaa markaa uu baaritaan ka sameeyay ku laabtay Cumaan. Waxay bilaabeen inay qorsheeyaan dilka Stephen Harris. Danny ayaa dubbe ka sameeyay wixii uu suuliga ka soo qaatay oo wuxuu dejiyay qorshe uu ku dilayo Harris isaga oo uu ekeysiinaya inuu musqusha ku siibtay uuna madaxa ka dilaacay. Intii ay qorshahan falanqeynayeen
ayuu nin sawirro ka qaatay ninkan oo ingiriiska kasoo daba kacay David. Dani ayaa ninkii arkay oo eryaday, si kastaba ha ahaatee ninkii ayaa baxsaday. Kadib kooxdiina waxa ay tegeen guriga Harris iyagoo iska dhigay inay yihiin cilmi baarayaal documentary sameynaya. Markii gudaha galeen ayay baaskoolad madaxa ka saareen Harris, waxaanay ku khasbeen inuu qinto dilkii uu geystay saddexdii wiil ee sheekha. Kadib markii ay muuqaal ka duubteen ayay geeyeen musqusha iyagoo raba inay dilkiisa u eekaysiiyaan inuu siibtay oo uu ku dhintay shil. Intaas kadib Harris saaxiibtiis ayaa albaabka soo qaraacday. Dani iyo Mayna waa ay mashquulsanaayeen. Harris waxa uu isku dayay inuu baxsado, taas oo keentay inuu Mayr xabad ku dilo. Sheekha ayaa ogaaday in raggii mid ka mid ah la dilay. wiilkiisina waxa uu tagay Hunter si uu ugu bishaareeyo in asxaabtiisa dileen mid ka mid ah bartilmaameedkooda. Intii uu Dani u socday bartilmaameedka labaad ayuu Spag ogaaday in Harris la dilay uu haatan garanayo cidda ka dambaysa. Mar kale ayuu odayaashu u tagay una sheegay inuu hubo ninkii uu sawiradiisa tusayay inuu dilay Harris, waxaana uu sheegay inay haatan wixii ka dambeeyay taxadaraan. David ayaa Dani ku wargeliyay halka uu ku sugan yahay bartilmaameedkooda labaad oo lagu magacaabo Bodyweek. waxaa shaaca laga qaaday inuu ku jiro cisbitaal ku yaala Australia. intii uu Dani cisbitaalka hor taagnaa oo isku dayay inuu qorshe la yimaado, waxa arkay Spag oo gaadhigiisa saarnaa. waxaan u fahmay in ninkani uu socdo ugaadhsi. waa uu daba kacay. Dani ayaa gartay in la daba socdo oo Spag ayaa u wajah wareeriyay isagoo magaalada ku soo wareejinaya. waxa uu ku soo laabtay cisbitaalka. Spagna waxa uu ku soo laabtay cisbitaalka. waxa ay bilaabeen inay dagaalamaan. dagaalkoodu waxa uu socday waqti fara badan oo Dani ayaa dagaalkii ku adkaaday. cisbitaalkiina waa uu iskaga yimi, waxaana uu yimi kooxdiisa, waxaana uu sheegay inuu sarkaal daba socdo. si kastaba ha ahaatee waxay ku sii dhaganaayeen qorshahooda. Warwick ayaa habeenkaas joogay xerada militariga. Dani isagoo askari isku ekaysiinaya ayuu galay gudaha xerada. kafeegii Warwick ayuu sun ugu daray, taas oo keentay inuu aakhirkii dhulka ku dhaco oo uu dhinto. kadib kooxdii Dani waxay go'aansadeen inay xeelad kale isticmaalaan si ay u dilaan bartilmaameedkooda u dambeeyay ee Simon, kaas oo u shaqeeyay shirkad calooshooda u shaqaystayaala. qorshahoodu waa in shil been abuur wadada dhexdeeda ku sameeyaan si Simon damin loogu dhigo oo shilkaas ku dhinto, iyagoo arrinta la kaashanaya Jack aan khibrad badan lahayn. Maya ayaa Simon ku dilay shil. si kastaba ha ahaatee Spag raggiisa ayaa kor kala socday. xabad ayaa la bilaabantay oo Mayer ayaa si lama filaan ah loo dilay. Dani wuxuu David u sheegay in la daba joogo oo uu magaalada ku dhuunto. way kala tageen. David waxa daba socday raggii Spag wuxuuna isku dayay inuu baxsado, balse gaadhi xamuula ayaa si xun u jiiray. Dani waxa uu ku laabtay Cumaan isagoo sheekha u sheegay in labadii nin uu soo dilay. sheekha ayaa Hunter sii daayay oo Dani waxa uu ku noqday Australia isagoo aana dib ula midoobay. wax yar kadib waxa soo wacay wakiilka, kaas oo sheegay inuu jiro hal nin oo qayb ka ahaa dilkii loo geystay wiilasha sheekha. Dani ayaa markaas aana u diray Faransiiska si uu Hunter u difaaco. waxa dhanka kale uu u tagay wiilkii sheekha, wuxuuna uu ku wargeliyay in aanay ku ciyaarin maadaama uu awooday isagii aabihii inuu dilo. Hunter waxa uu mar kale dib ula kulmay Dani, waxaana uu sheegay inuu ka caawin doono inuu shaqada dhameeyo. intaas kadib Dani ayaa diiday oo waxa uu rabaa inuu iska joogo. Hunter ayaa markaas aaday magaalada Paris si uu u ilaaliyo Anna. dhanka kale Spag wuxuu kor kala socday Dani, waxaanu kooxu diray ninkii la ugaadhsanayay si loo ilaaliyo, balse Jack ayaa iyaga mashquuliyay. ugu dambeyn Dani ayaa ninkii dilay, sawirana waa uu ka qaatay. Spag ayaa Dani qabtay oo waxa uu geeyay baqaar cidlo ah, laakiin waxa markaas yimi wakiil dowladeed, waxaanu daaha ka qaaday in dowladda Ingiriisku ka dambeysay dilkii ku dhacay wiilasha sheekha, maadaama uu sheekhu hayay dhul saliida oo qiimihiisu sareeyo. markan dagaal saddex goosooda ayaa dhacay. Dani waa uu baxsaday halka Logan uu toogtay wakiilkii dowladda. dhanka kale wakiilka ayaa aanayasha ku hayay iyagoo u malaynaya in Dani la dilay, waxaanay qorsheeyeen inay iyadana u dhameeyaan, laakiin Hunter ayaa badbaadiyay oo raggii wada dilay. kadib Dani iyo Hunter ayaa aaday Cumaan si ay sheekha sawiradii u tusiyaan, laakiin Spag ayaa ka hor imaray una sheegay in sawiradani been abuur yihiin. kadib sheekhii ayaa uu dilay. wiilka sheekhu arrintan uma dirsan Dani, balse Spag ayaa u dirsaday lacagtii faraha badneedna uu siiyay. Hunter oo arkayay Spag oo ka soo baxaya guriga ayuu daba galay. markii gaadhigii soo kaxaysteen ayay Dani iyo Hunter ceyrsadeen, saxaraha ayaanay ku qabteen. Hunter waxa uu qaatay qayb ka mid ah lacagtii qayb ka mid ah waxay u dhaafeen Spag, waxaanay sheegay inuu u baahan doono aanu nolol cusub ku bilowdo. Dani ayaa xasuusiyay haddii uu mar dambe soo daba kaco inuu u dhamayn doono. way ka soo tegeen. kadib Dani waxa uu ku noqday gacalisadiisa Anna. filimkiina halkaas ayaa ku dhammaaday.